بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة والله قال خير كجعل إلهي سبحانه وتعالى يا محدث كله مركل اسكن سعلي. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله دائما وابدا، الحمد لله، شكر لله، الحمد لله على كل حال، الحمد لله دائما وابدا. سود واضح احبابي، ما انت وحوذا قصص لقى اركي ذكرك حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل وليه كلا حسبي الله ونعم الوكيل وليه كرتا. dikriga walaalaha qaaliga waxa weeye tala saarashada ilaahay subxaana watacaala arrimahaaga u dhiibatay. markaad intaas la timaadana adigana waxaa lagaaga baahaya in ilaahay subxaana watacaala malo wanaagsan ka qabto, qalbigaagana uu ku dego ilaahay subxaana watacaala nasarkiisa iyo gargaarkiisa inaad helaysid. dikrigan walaaliya waa dikriyada ilaahay subxaanahu watacaala dadka ku xifdiyo oo ilaahay subxaana watacaala ugu hiiliyo. haddaba markay dhibaato kugu dhacdo, markuu cadow kugu dhaco, wax kaa xoog badan ku haystaan, markii aa xanuunsan tahay, mar walbe dikrigan walaalayaal waa dikriyada macnihii ilaahay subxaana watacaala ugu tala saarta axwaashaada oo dhan, arrimahaaga oo dhan ilaahay subxaana watacaala ugu tala saaranayso. dikrigan ilaahay subxaana watacaala qur-aanka kariimka waxaa inoo kugu sheegay inuu ilaahay subxaana watacaala ku badbaadiyey nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam, oo markii qoomkiisii ay dhaheen xariquuhu guba markay dhaheen uu ku dhawaaqay dikrigan ilaahay subxaana watacaala uu taladiisii u dhiibtay, umuurihiisa ilaahay subxaana watacaala u sheegtay. ilaahay subxaana watacaalana dabkii wuu ka damiyey oo ilaahay subxana watacaala wuu nabadgeliyey. sidoo kale nabigeena calayhi salaatu wasalaam, nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam, markii ay soo hujuumeen jeyshul kufaar gaalada ciidankoodii, nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahaa xasbuna allah wanicma alwakiil. ilaahay subxana wataala suuratu cimraan buu inoo kugu sheegay. ilaahay wuxuu yidhi wax dhib ah ma uusa taaban ayuu dhaha ilaahay subxaana watacaala. maasha allah tabaaraka raxmaan. haddaba walaalaha qaaliga ah, dikrigan waxaa weeye dikri ilaahay subxaanahu watacaala qofku uu ku magangelayo, ilaahay subxaana watacaalana uu ku tala saaranayo, arrimihiisa oo dhan uu ku tala saaranayo. marka qof walba oo dhibaato haysato, mid kastoo murugo haysato, mid kastoo raba axwaashiisa inay u hagaagaan, ilaahay subxaana watacaala tawakal walaalayaal. waxaa guda gelaynaa qisaskii laga arkay dikrigan. dikriga xasbiya allah wanicma alwakiil, qisadan baa laga arkay. qisadan waxaa ka sheekeynaysa gabadhan waxay tiraahday waxaan guursaday bay tiraahday wiil dhalinyaraa baan guursaday bay tiri, aan waxba haysanin baan guursaday bay tiri, wuxuuna igu guursaday ama igu aroosay gurigii waalidkiis ayuu ii geeyey. markaan arooskii ka baxnay waxay tiri reerkii ayaa waxay tiraahday dhinacayga anigana wixii wax qabasho ah aan ka qabanayay, waxaan ula dhaqmayay sidii gurigaygii oo kale tiri, hawsha dhinacayga aan ka qabanayay bay tiraahday. waalidka maxay sheegay sawjkayga ama sodohda iyo sodoga waa ixtiraamayay bay tiri, sawjkayga waan jeclaa bay tiri, si daacad abaan waxay tiri ula noolaa bay tiri. waxa dhacday bay tiraahday waqtiyadaas ka mid ah in sodohday ay i xumaysay bay tiri, wax aan ii qalmin ayay waxay tiri igu samaysay bay tiri. waxaan ku iri bay tiraahday markaan ka xumaaday arrinkaas oo qalbigaygii waxay tiraahday uu dhaawacmay oo qalbigaygii jabay, ayaan waxaan ku iri xasbiya allahu wanicma alwakiil fiika, ayaan ku iri bay tiri fiiki, xasbiya allahu wanicma alwakiil fiiki ayaan ku iri bay tiraahday. anigoo waxay tiri qalbi jaban ayaan gurigoodii isaga tegay bay tiri, gurigaygii baan aaday. halkaasaan iska aaday bay tiri, aniga oo waxay tiri niyad jabsan ayaan meesha isaga tegay. sawjkaygii waxay tiri wuu iska aamusay bay tiri, asagoo aan raalli ka ahayn bay tiri waxa la igu samaynayo, waalidkiisna ixtiraamaya ayuu iska aamusay oo wax hadal ah afkiisii kamay soo baxin bay tiri. gurigaygii baan iska aaday bay tiri, salaad kasta gadaasheedaba waxaan ku celcelinayay bay tiri xasbuna allah wanicma alwakiil, xasbiya allah wanicma alwakiil ayaan ku celcelinayay bay tiraahday. 7 saacadood markay kasoo wareegtay gudahooda ayaa waxay tiraahday maamadii derbi guriga ku yaalay baa kusoo dumay bay tiri. maamadii isbitaal baa loola cararay, dhibaataa gaartay. waxay tiraahday gabadhii hala ii raadiyo, hay cafisee, aniga ayaa ka gardarnaa oo dulmiyey. waalidkay ayaa arrinkii soo gaaray. waalidkay waxay dhaheen iska cafi, ilaahay subxaana watacaala waa cafuu, khaldamay waa ilaahay, waa bini aadan, maamada way khaldantay, adigana ilaahay wuu kuu hiiliyey, marka iska cafi. waan iska cafiyey bay tiri. gurigaygii baana kusoo laabtay bay tiri, ma aanan joojin bay tiri dikrigii ilaahay subxaana watacaala iigu gargaaray bay tiri. gurigii waxaan ugu noolaaday bay tiri sidii boqoradii baa ugu noolaaday oo la ii ixtiraami jiray,
sida aniga dadka u ixtiraamay si kan wanaagsan baa la ixtiraami jiray bay tiri alxamdulilah waxaa dhacday bay tana dikrigii joojin ilaahi subxana watacaala sawjkaygii wuxuu u sahlay shaqo ayuu u sahlay bay tiri alxamdulilah guri aniga aan leeyahay ayuu ii dhisay ilaahay awlaad buu i siiyey maanta waxay tiri nolol qurux badan ayaa ku noolahay waxaana la noolahay dikrigaasaan la noolahay bay tiri mar walba ilaahay subxaana watacaala ayaan taladayda u dhiibtaa bay tiraahday walaalayaal ka faa'iidaysta dikrigaasay tiri qisadan walaalay ayadana nin baa ka sheekeeyey ninkan wuxuu yidhi waxaan lahayn buu dhahay dukaan marka dukaanka dadka masaakiinta ganacsatada yaryar ayaan wuxuu dhahay caawin jiray buu dhahay oo lacag ay u baahan yahay wax kusoo gataan kadibna soo celiyaan ayaan siin jiray buu dhahay maalin maalmahaad ka mid ayaa nin ii yimid wuxuuna igu yidhaahday ganacsatada yararkaabaa ka mid ah walaalo lacag isii aan kuu soo celiyo lacagtii baan siiyey buu dhahay isbuuc baan sugay ma uusa soo celin isbuuc labaad baan sugay ma uusa soo celin kadib wuxuu dhahay waan u tegey waxaan ku yidhi walaal maxaa u soo celin weyda lacagtii wuxuu yidhaahday lacagtee ma lacag baad isiisay wax caddayna ama rasiid ahna wuxuu yidhaahday ma aana siin jiray dadkii waa iska siin jiray ilaahay dartiisa ku aamini jiray wayna ii keeni jireen wuxuu dhahay ninkii wuxuu yidhahday ma wax caddayna baa haysataa ani lacag maada siinay dhaaf wuu inkiray buu dhahay lacagtii waxaan idhi xasbiya allah wa nicma alwakiil baan ku idhi waana kasoo tegay buu dhahay ninkii wuxuu dhahay maalintii labaad baa masiibo ku dhacday buu dhahay naagtiisii ilmihiisiiba baabuur la gadoomay isagoo orday ayuu ii yimid wuxuu dhaha walaalo i cafi xaaskaygii ilmahaygiiba baabuur la gadoomay waan ku xumeeyey xoolahaagii baan xalaashaday walaalo xoolahaagiina waa kuwan i cafi wuxuu dhahay wiilkii waan iska cafiyey marka ma fiicna dhibaatada iyo dulmiga in dadka islaamka la dulmiyo qisadaasaan ka arkay buu dhahay dikriga xasbuna allah wa nicma alwakiil qisadana sheekh baa ka sheekeeyey walaalayaal sheekhan wuxuu yidhaahday waxaa jirtay buu dhahay reer gabar oo macnihii shaqaalaha ay u shaqayn jirtay gabadha hooyadeed ayaa reerka u keentay oo aabbaha iyo hooyadu waxay ahaayeen dad wanaagsan bay u keeneen waxay ku tiraahday gabadha yarta ii haya hana idiin shaqaysay mushaarna igu siiya si aan reerka wax ugu biirsado gabadhi yartaha iyadoo aada u da'yar ayay reerka u shaqayn jirtay 7 sano iyadoo jirtaa loo keenay ilaa 17 sano ay ku gaartay reerkiisa gabadhii ugu shaqayn jirtay hooyadeedna wax loogu diri jiray iyadoona reerka ula noolay wiil kamid ah wiilashii reerka ayaa gabadha mar walba diri jiray wax yar markay hadlayso gabadha madaxa ayuu ku dhufan jiray madaxa ayuu wax uga dhufan jiray gabadha way iska hitirahda waa iska samri jiray waalidku way ka celin jiray mar walba madaxa ayuu jug uga dhufan jiray siday u joogtay gabadhii ninka wiilka wuxuu ahaa wiil qaangaara oo nin weyn ayuu ahaa gabadhii way iska samri jirtay waalidkeed bay waxaa yarka reerkaasiyaan u diri jiray iyadana waa iskala noolayd way u shaqayn jiray hawsha guriga wax u qaban jirtay si isaga noolayd gabadhii ay u joogtay baa hal mar gabadhii indhihii ka dhaceen jugtii dhakhtar baa la geeyey waxaa la yidhahda jugtii madaxa looga dhufan jiray baa gabadhaan indha riday oo indhihii beeshay gabadhii wiilkii wuu weynaaday reer buu yeeshay gabadhiina way indha beeshay hooyadeed iyo reerkoodii baa loo geeyey waxaa lagu yidhi gabadhiini way indha beeshay ma shaqayn karto wiilkii gabadhii sidii baa reerkoodii loogu geeyey halkii baa lagu ilaaway wiilkii gabadhii diri jiray wuu guursaday guurkiisi ugu horreeyey wuxuu dhalay ilmihiisi ugu horreeyey oo aad u jecel yahay wuxuuna ku dhashay ilmihii indhala-aan isagoo indhala ayuu dhashay ilmihii subxaan allah haddana wuxuu ogaaday wiilkii dembigii iyo dhibaatadii gabadhii maskiinta ahayd uu dulmin jiray ayuu xasuustay haddana gabadhii xaaskiisa ilmihii labaad bay uur u yeelatay ilmihii asagoo indhale buu dhashay balse sanad markuu gaaray ayuu indhabeelay subxaan allah gabadhii buu raadiyey wiilkii oo gabadhii oo indhale ayuu raadiyey oo u tegay gurigoo meeshoodii ugu tegay deganaayeen wuxuuna ku yidhaahday walaal i cafi waan ogaa dhibaatadii aan ku geystay iyo dilkii iyo hujuumkii aan ku geysan jiray darteed in lagu yiri indhahaagu waad u beeshay marka iska kii cafi maxaadna samayn jirtay marka aan ku dilo maxaa samayn jirtay gabadhii waxay ku tiraahday waan ku cafiyay maanta anigu waa indhala ah ilmahaagiina way indhala yihiin oo ilaahay subxaana watacaala wuu iiga kaajaray mar walbo aad idishid waxaan dhihi jiray xasbiya allah wa nicma alwakiil xasbiya allah wa nicma alwakiil baan dhihi jiray bay tiraahday gabadhii marka ilaahay subxaanahu watacaala wuu u gargaaray gabadhii walaalaha qaali qisaskaas waxaan ka baranaynaa dulmiga iyo dhibaatada uu leeyahay ha layska ilaaliyo walaalaha qaaliga ah anigu goobjoog waxaan u ahaa qisada koowaad qiso u eg ayaan goobjoog u ahaa gabar wanaagsan oo ihridiin ah oo weliba aad iyo aad u wanaagsan
ba anoo hadda ka hor islii degan iyo wiil dhalinyaro isguursaday ayaa qol iga kireysteen, qol bay iga degeen. gabadha marka xasha mayse ka bixi jirin guriga. maalintii dambaan weydiiyey way ii soo gashay, waxay igu tiraahday walaal waxaa la igu yiri wiilkan wiil yar way arday ah, gurigayaga imow, guriga wiilka aabihiis iyo hooyadiis gurigayaga cuntada ka cunaysaa. shuruudii kow markii laysoo aroosayay ayaa shuruuddaas layla galay bay tiri. wiilkana xasha waxaa ma haysto, waa arday weliba waxbarasho ku jiray. gabadhii maxasha anaga iskala kaayo noolayd, dadka islaamkaaba isaga dhex noolayd. aakhirkiina hooyadii gabadhii uur bay yeelatay. hooyadii gabadhii uurkii maxasha waxay tiri hooyadii lama qalayo because lacag lagu qalo waddanka Kenya aad bay u badantay lacagta qaliinka iyo lacagta markay gabadha caadi u dhalayso isma lahan. waxay tiri lama qalayo. ilmihii kafkuu ku daahay, aad buu ugu dhibaatooday. ilmihii asagoo baraalis ah ayuu dhashay. ilmihii aad bay gabadhii ula dhibaatootay. kadibna wiilkii gabadhii way kala tageen. gabadhii ilmihii waa ka dhintay. maalin dhow oo hadeer waxaan arkay gabadhii oo ninkii waxay tiraa waa kala tagnay Faadimoy, maamadii way waalatay. wiilkii waxbaa ku dhacay, dhibaataa ku dhacday. ayadii nin kala guursaday. ilma waxay tiraahday caadi, ilma caadi ah ayaa u dhalay baan haystaa. marka dulmiga ani waxaan xasuustaa maamada intay guriga soo gasho oo anigana ii yeertay dhihi jiray gabadhan maxay meesha u fadhida, may guriga hawsha ka qabato, may qadada kariso, may cashada kariso, maxay meesha u fadhida may dhihi jiray. gabadhan wajigeeda haddaa aragtay waa ka naxaysay ay ku qaylinayso. marka hooyooyinkaas sodohyada waxyaalahaas kale ha iska ilaaliyaan. gabadhu waa gabadhaadoo kale, booska gabadhaada dhig, gabadhaas sodohda u tahay. wiilku hadduu wiil dhalinyaro ah oo shaqaysan uu yahay sida xaasaska kale maxaa nimanka shaqaysta, gabadha ula dhaqan. ilaahay subxaana watacaala khayr buu kaa siinaya, ilaahay ajarkeedu kaa siinaya. ilaahay subxaanahu watacaala kuma dayici doonka qof walaal oo miskiin ah aad macnihii xanaanaysid oo u naxariisatid. marka maasha allah axbaabii intaasay ku egyihiin qisaskii walaalaha challengiga nala bilaabaya. shalay waa anigii soo geliyay macwadateynka iyo dikrigan oo shalay aydiin ballan qaadina qisas idin kaga soo diyaarin. dikriga xasbunallah wa nicmal wakiil ayaan samaynaynaa bisha inta ka hartay iyo bisha kale dhexdeeda hadduu ilaahay idmo. marka maasha allah walaalaha aan ku jirin gruubkeena ka faa'iideysta walaalayaal akhrista. walaalaha raba inay nagu soo biiraan mar walba waa idiin sheega walaalayaal, kommentiyaasha iska soo qorinina, fiidiyoyadeeda si fiican u dhagaysta. youtube waxaan leeyahay, facebook baan leeyahay page Faadimo Keyton, sawirka ii saaran, youtube baa ii saaran, halkaas igala soo xiriira. linkiga gruubka idiin soo diraya, gruubkaas soo galaysaan, challengiga waa ka qayb noqonaysaan. aysan ahayn qofkii aan rabo inuu gruubka soo galo meeshiisa ha ku sameeyo. maasha allah dikriyada walaalayaal cajaa'ib waaweyn baa ka arkaysaa. midda kale waxaa baranaysaa dikriga saamaynta kugu leh baad baranaysaa markaa challengeyadan ka qayb qaadatid. dikrigaas anigu hadda Faadimo ahaan dikriyadan oo dhan waa soo sameeyey. dikriga saamaynta igu leh maasha allah markaan sameeyo aan ka arka cajaa'ibta waa aqaanaa. ma fahanteen walaalaha qaar sidaasoo kale baan rabaa idinkana inaad u barataan. ma fahanteen marka maasha allah tabaaraka raxmaan ka faa'iideysta axbaabi fillaah. waxaa baranaysaa dikriga saamaynta kugu leh ilaahay subxaana watacaala kugu ajiibo cajaa'ibta aad ka arkaysid baa baranaysaa markaa dikriyada wada samayso. maasha allah marka dadaal wacan baa idin leeyahay. bishaan lambar ma sheegin oo lambarada waa laga soo cabtay. hooyooyin waaweyn oo 90 jira ayaa gruubka challengiga ku jira. marka qof walba awoodisay dhalinyaro yaryar oo xataa maalintii dhawda dikriga xawqalada 5 kun markaa sameynay ka badinayay oo maxaa 10 kun gaarsiiya saliga nabiga iyo istighfaarta kulli gaarsiiya baa nugu jira. marka anigu waxaa leeyahay qof walba iyo awoodiisa wax meeshuu awoodo qofku ha ka bilaabo. xataa dikriyada haddaa 7 biyaha ku tufato, saliidaha ku tufato, jirka marsato, haddaa xanuunsan tahay xasad iyo macnihii iliya sixirku hayaan, haddaa si kale u xanuunsan tahay, haddii aad rabto ilaahay subxaana inuu umuurahaaga kugu sahlo, haddaa rabto ajir inaad ka hesho quraan ilaahay baad akhrinaysaa. way soo aroortay nabiga calayhi salaatu wasalaam hal aayad inuu ku celceliyay muddo dheer uu ku celcelinayay. marka maasha allah walaalayaal ka faa'iideysta, mar walba khayr iyo farxad baa kala kulmaysaa. dikri ilaahayna wuxuu dhahay dikrigayga iyo xuskayga badiya. marka mar walba waad guuleysanaysaa. marka ka faa'iideysta axbaab filah, khayr iyo farxad baa idiin rajeynaya ku wada guuleysano dhammaanteen. wixii aan khaldan naftay shaydaan bay kaale, wixii aan saxayna min allah. وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.